أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله والصلاة والسلام الأتمان الأطيبان الأطهران على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على النهج واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أحبابي الكرام meel kastoo naga daawanaysaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. salaan kadib insha allahu tacaala caawa habeen sabti ah taariikhda hijriyadana ay tahay 27 shawaal 1441 kuna asteysan 19 juun 2020. waxaan ku ballansanayn insha allahu tacaala muddooyinka ma sugeyseen inaanu idin bilowno barnaamijkii aad sugeyseen barashada salaada. insha allahu tacaala barnaamijkan waxaa nala wadi doona oo marti noogu ah insha allahu tacaala fadiilatu sheekh ibraahim macalim nuur oo aan rajeynayn insha allahu tacaala inaanu wixii barnaamijkan oo duruusta wax naga siiyo wixii su-aalana asigaan ka weydiino barnaamijkan ku saabsan insha allahu tacaala. intaad la socotaana wixii oo duruusta socotane wixii su-aalaha qabtaanna waa noo soo diri kartaan insha allah. marka horeysa waxaan rabaa inaan sheekh kusoo dhaweey barnaamijka barnaamijkeyti. waan dhawahay daarul maxaba iyo dadkii ku xiran iyo dhalinyarada iyo muslimiintiina waa umahad celinayaa. maasha allah sheekh kheer allah ku siiyo. salaada waa baaxad weyn tahay, wax badan baa ka horeeya, weyse iyo dahaare iyo wax badan baa ka horeeya. bal ka hor intaanan guda gelin barnaamijkeena oo yani casharadii salaad intaanaba gaarinba waxaaba ku horeeyay dahaarada. dahaaradan intaanan guda gelin waxaan rabnaa inaan kala ogaano farqiga u dhexeeyo dahaarada iyo nadaafada. waayo in badan hadda zamanka marka aragta ama khaasa magaaladan joogno qofka waxaa laga yaaba inaad wareedha maradan daahir me wax kule nadiif waaye. marka bal farqiga u dhexeeya dahaarada iyo nadaafada inaad bal noo sharaxda insha allahu tacaala. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد marka hore dahaarada iyo nadaafada markii la yiraahdo dahaarada horta waxaa loo kala qaadaa luqatan wa sharcan. markii dahaaro luqa ahaan la yiraahdo nadaafada soo gelayso, markii xagga sharciga loo leexdane dahaaradii sharciga imaanayso. xagga luqatan markii aan kala saarno an niraahdo alfarqu bayna النظافة والطهارة والطهارة الشرعية لليها lagu daraa, laakiin طهارة hadii liyaha nadaafada soo gelayso. alfarqu bayna النظافة والطهارة الشرعية luqatan horta marka hore waxaa la yidhaha dahaarada النظافة والخلوص من الأدناس الحسية والمعنوية ama حسية كانت كالأنجاس أو معنوية كالعيوب. xagga dahaarada horta waxaa la yidhaahdaa luqa ahaan nadaafo in laiska nadiifiyo, in alkhuluus in laga baxo laiska hagaajiyo oo laiska nadiifiyo min aladnaasi wasaqyaalka wasaqda ah oo aqdaarta ah, iyadoo loo kala qaadayo marka xisiya wax way tan annaga noo muuqaton arkayna waay si nijaasooyinka iyo wixii lamid ah waay, ama shay macnawi oo aan la arkaynin kalcuyuub. qofka bani aadamka ceeb oo yeelna ceebta waxaa kamid ah xasad, waxaa kamid ah xiqdi, waxyaalaha xunxun, xubu dunya oo la yidhaahdo amraad lquluub la yidhaahdo marati oo qofka bani aadamka oo nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ee xunxun liska nadiifiyo waa soo wada gelaya. kulli luqa ahaan saasaa la yidhaahdaa. xataa tan dahaaradii sharciga hataa meesha inay soo gashay waa laga yaabaa, laakiin tanaa guud ahaan markii la xagga aan u leexino oo xataa waxaa jira xadiidka oo xabiibkeena sala allahu calayhi wasalama oo laga wariyey oo imaam muslim oo werinaya saxiixiisa adduhuuru shadru liimaan oo nabigeena yidhi duhuurka waa iimaanka barkiisa. marka culimada kaa waxay ku fasireen duhuurka lugawiye oo kan nadaafada loo jeeda waay, ama xisiyan iska nadiifi, qalbigina iska nadiifi, dhaahir wa baatin iska nadiifi, waa shadru liimaan. marka kaasi wax wey nadaafada waay. markii xagga sharciga aan u leexino dahaarada sharciyada waxaa la yidhaahdaa ficlu ma tatawaqafu calayhi ibaaxatun walow min bacdi lwujuhi aw thawaabun mujarad aa la yidhaahdaa. waa shay iyo haddaad samayso wax ay kugu banaananayaan
wax ay ku banaananayaan awal kaa xaaraam ahay ay ku banaan noqonayaan, ama hataa walow min bacdi wujuh ha ahaato. macnaha masalan hadda salaad ma dukan kartid ilaa aad weysaysato, weysadii sharciga ahayd markaad weysaysato lagu ogol yahay, ama ilaa aad ku qubaysato, ama walow min bacdi wujuhi, ama marmar una ha ahaato si tayamumka oo kale inaad booraysato markii aad macnaha biyaha aad wayso, ama biyihii xaggeeda maanic ku qumo biyihii, ama adaa xanuunsan oo kale, walow min bacdi wujuh la yidhahda. ama thawaabun mujarad, ama waxaa ka imaanaya thawaab mujarad waxay ku tilmaameen culimada weysada wejiga marka hore waajib tahay, marka labaad thawaabaa ka dhalanaya, waa thawaab keli. ama adoo weyse qabto oo weysadii ku dukaday, weyse tajdid wudu baa la yihahda, weyse kale aad isku cusboonaysato hadani weyse cusub, idan thawaab mujarad waay. markaas waxaa la yidhahdaa dahaara sharciga ee taasaa la yihahdaa. waxaa la yidhahdaa ficlu ma tatawaqafu calayhi ibaaxatun walow min bacdi lwujuh aw thawaabun mujarad, kaasaa la yidhahdaa. marka shay oo haddii aad samayso wax awal aan ku banaaneen ay ku banaan noqonayaan, xataa qaar leh marmar ha ahaato, marmar waxay si tayamumka oo kale markaas ma ahan. ama thawaab mujarada ka xasilaa adoo weyse qabo si weysayso, ama qubeys sunna ee si jumcada loo qubeysto oo kale, thawaab mujarad waay. ila wax kuma banaana noqonaya, wax ku banaan awal ka xaram ahay hadda lagu ogolaanayo ma jirto, awal ay ku banaanayeen, laakiin waxaa meesha kaga xasilaya thawaab mujarad marka kaasaa la yidhaahdaa dahaarada sharciya, kaasaa la yidhahdaa. nadaafadina waa tii hore aan sheegnaa la yidhahdaa. wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu. maasha allah, hadda qaybtan way fahnay hadartaan nadaafada iyo waxa la yidhaha iyo dahaarada. marka waxaan kaloo kuweydiinayaa dahaarada xaggay ka bilaabataa, goormaysa bilaabataa? dahaarada waxay leedahay wasaa'il iyo maqaasid iyo wasaa'il lwasaa'il. wasaa'il lwasaa'il waxyaalaha dahaarada lagu gaaro wasaa'il baa la yidhahdaa. waxyaalahaas wax lagu sii gaarin wasaa'il wasaa'il baa la yidhahdaa. maqaasidaa ka dambaysa marka aan ka bilaaban wasaa'il lwasaa'il laba shay waayo. waxay ku tilmaameen culimada alawaani walittihaad, weelkii biyaha aad ku qaadan laheed, biyaha ilaa weel ay u baahan yihiin aad ku dahaaro qaadanayso, iyo itihaad. itihaad wax weeye qofka inuu dadaalo. mathalan itihaadka marmarow imaanaa, markaas ma imaanayo. laba maraa gurigi ku yiileen waana isku ekaayeen, mid baa nijaas, mid waa daahir. inaad waxaa loo baahan yahay marka kii daahirka ahay kii kale inaad ku itihaado soo saarto. laba weel biyana midna nijaas, biyo nijaasa ku jireen, midna biyo daahir baa ku jirin, waad kala garan waaysa lagu itihaado. marka weelalkaas iyo itihaadkaas aad dadaalka aad meesha ku bixinayso wasaa'il lwasaa'il baa la yidhaahdaa. waxaa kusii xigaa marka wasaa'il. wasaaisha idin waa afar: almaa wturaab wdaabiq waxajar listinjaa'i a la yidhahda. biyaha biyihii aad ku daahir qaadan laheed, ama ku weysaysan laheed, ama aad ku qubaysan laheed. ko turaab waa caradii aad ku gagambaysan laheed ama aad ku booraysan laheed. caradaas oo markasta aan la isticmaali karin markii biyaha aad wayso, ama biyihii ay ka cudur taabaan isticmaali wayso, si xanuun daraadiisa oo kale biyahaad u isticmaali waysay, ama qabow zaa'id baa jiray, bedelkooda caradi ciidiyaa la geliyaa, turaab baa la yidhahdaa. saddex daabiqa la yihahdaa, maqaarka baktiga xoolaha markay baktiga noqdaan, maqaarkooda markii eyga iyo doonfaarka laga reebo asoo nijaase najasluceene waa la megdayhaa. shay kulul oo daabiq la yidhaahdo aa lagu macnaha aa lagu dhaqaa. shaygaasa marka waxaa laga dhigaa maqaarkii wax alla wixii hilibka ahaa, itinta ahaa, cufuuna ahaa, wasaq ahaa, dhan saarnay aa laga saaraa. markaasu wuxuu kusoo baxayaa si mara oo kale. nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa neef bakti oo kale ayaa wuxuu ku yidhi maxaa dhacay, markaasa iska tuureen. marka maad ku intifaacataan oo maqaarkiisa aad megdaysataan, oo markaasa waxay yidhaahdeen asxaabtii waa mayto. markaasa inamaa xurima akluhaa buu nabi yihi calayhi salaatu wasalaam. saxiix muslim waa in la cunaa la xaaraantimeeyey mahane, maqaarkiisa waa in la megdayey waa la yirkaa. waa labo, waa saddex kii saddexaad wey. kan afaraad xajarulistinjaa, waa dhagax lagu istinjaysanayo wey. dhagax lagu istinjaysanayene mar kasto waa macnaha waa lagu ogol yahay, biyaha ka fadi badan, laakiin waxaan istinji ahayn ma anfacayo. waxaan istinji ahayn ma anfacayo. waa inaad ku istinjaysataa saxarada makaadada. shuruuduu leeyahay waan gaari doonaahi. hadda wax weeye dhagaxa waa kii afraad. marka afartan hadda aan sheegay waxaa la yidhahdaa wasaa'il.
almaau wاturaabu wاdaabiq waxajaru listinjaa. mid kasta shuruuduu leeyahay waan sheegi doonaa. marka waxaa jira marka maqaasid. maqaasidu maxay tahay marka wey? maqaasid waa afar ayagina wey. waa meesha loo socdo waay, dahaaradii loo socdo la gaarahay laftirkeeda wey. alwuduu wاlguslu wاtayamumu waizaalat الnajaasati. weysida aad weysaysanayso waan gaari doonaa, waan faahfaahi doonaa. weysida kow. kan labaad waa gusliga qubayska, labadaama biyaha waay. waa tayamumu booraysiga. booraysiga marka haddii biyo la waayo meeshii weysadina waa gelaa, meeshii qubayskina waa gelaa. kan ugu dambeeyo xajarul istinjaai, waa dhagax lagu istinjaysanaayo. macana waxaan rabaa wa izaalatu najaasa aan idhahday. xajarka waan soo sheegay, najaasa la iska zuuliyo. oo najaasa maxaa la iskaga zuuliyaa? laba shay baa lagu zuuliyaa. biyihii aan soo sheegnay oo number 1 iyo xajarkii aan soo sheegnay oo asigina biyaha bedelkooda ma ahe, biyaha idoo la heli karo waa lagu istinjaysi karaa, laakiin biyaha ka fiican ilaa asiga ceenta uu zuulihayo asarta ma zuulihayo. marka afartaani waxaa la yidhaahdaa maqaasidu dahaara: alwuduu weysaqaadkii, waalguslu qubayskii, labadan biyaha lagu isticmaalaa, watayamum booraysigii, meeshii weysidii, meeshii biyaha, meeshii qubayska, meeshii weysida waa gelayaa, laakiin markii ay macnaha la waayo waayo markaas ma gelaya sii way. kan afaraad wax weeye izaalatu najaasa, najaasa la iska zuuliyo. maxaa lagu zuuli karaa najaasada? biyaha oo mutlaqa wax kasi waa zuuli karaan. xajarkii aan soo sheegnay asigina najaasadii kasoo baxday qubulka iyo duburka oo saxarada ama kaada kaliya ku eg, najaasa zuulinteeda way. marka afartaana waxaa la yidhaahdaa maqaasidu dahaara. afartaan markii la helo, afartii ka horeysayna waa waajib in labadii ay ka horeeyeen intaanay dahaarada ka bilaabataa horta. maasha allah sheekh khayr allah ku siiyo. haddii alid macaawad intaas baan cashirkeeni kusoo gabagabeyneynaa. intaanu duduma kulmi doono. hada billahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.